waxaa rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam mathal iyo tusaale cajab leh oo xagga toobadkeynka ku saabsan. wuxuu rasuulku yidhi alle subxaanahu wa tacaala waa kaga farxad badan yahay addoonkiisii oo sadcaal iyo safar galay oo daabadiisii iyo gaadiidkiisii kaxaystay oo neefkii ay raashinkii iyo biyuhu u saarnaayeen ee sadcaalka uu ku marayey intuu meel seexday neefkii ka baxsaday oo biyihii raashinkiiba kala cararay oo intuu wax doondoono wax egeegay waxba u muuqan waayeen uu dabeetana soo noqday oo uu geed hoostii iska seexdo is yidhi meel socod iyo caga ku gaadhi mayside halkaa naftu ha kaaga baxday iska jiifso. oo markuu indhaha kala qaaday uu ku toosay neefkii uu gaadiidka u ahaa ee raashinka iyo biyuhu u saarnaayeen isagoo dul taaganoo maxaanku yidhi hoggaankiisuna soo laadlaado oo intuu hoggaankii ku dhegoo qabsaday farxad awgeed uu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk, ilaahu adigu addoonkaygii baa tahay ana rabbigaa baan ahay. rasuulku wuxuu tilmaamay akhta'a min shiddati alfarax, ninkaasi farxaddii oo ka badatay iyo farxaddii adkayd ee uu farxay ayuu gafay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. sida qofkaasi ugu farxayo wuxuu la mid yahay qof waxaasi ay ku dhaceen baa suuraysan karee waxa uu la mid yahay qof dhintay ama dhiman doonay oo naftu ku soo noqotay oo kale. sida awgeed baa ilaahay qofkaasi siduu ugu farxayo gaadiidkiisii u soo noqday si ka daran ayuu alle ugu farxayaa addoonkiisu markuu u toobad keeno oo uu dunuub uu alle ogaa addoonkiisu inuu galay uu sameeyo alle waa ku farxayaa subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha adduunyada ka dhacaya ee masaa'ibtee kala duwan ee naf iyo maalba dadka waxyeelaya ee deegaanada iyo dunyada iyo dadka asiibaya ee xanuunada iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dhacaya kulligood waxaa u sabab ah bani aadamku dembiguu gelayo aanu ka toobad keenin. haddana wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir. ilahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala wixii musiiba idinku dhaca waa waxaad gacmihiinna ku shaqaysateen, wax badanna alla waa idinka dhaafay subxaanahu wa tacaala fi suurati shuura. fi suurati nuur falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnah aw yusiibahum cadaabun aliim. waxaa looga digayaa dadka ha ka digtoonaadee dadku ha iska jireen kuwa khilaafaya ilaahay amarkiisa inay ku dhacdo musiibo asiibto, an tusiibahum fitnah, fitno inay ku dhacdo oo intuu markaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii uu ka baydho oo aafa ku dhacdo, ama musiibo iyo cadaab xanuun kulil uu ku dhaco asiibo. sida awgeeda markaa adduunyada fiirisi sababaha halaaga dadka waxyaabaha lagu sallidee ku dhacaya kulligeed taariikhda qur-aanku ka warramay dunuub bani aadamku geystay buu ahaa oo aan laga toobad keenin.